Soomaaliya waxa ay maar raba mar dhow Asho Speed oo la kulmay Jeje Okacha kaasoo joogay 3 maalin. Commentiga ayaa lagu soo qoray Jeje Okacha Soomaaliya ayuu ka yimid markaas uu wareystay wuxuu yiri Soomaali ma aad maxay ugu sheegaysaa maxay wadi weysay Jeje Okacha ayuu sheekeynaa Soomaaliya marka Asho Speedna markasta wuxuu yiraahdaa Soomaali ayaan ahay maadaama uu haysto Soomaali asxaab la ah. You was in Somalia last week? Yeah. Oh, you was? Huh? 3 years ago? 3 days. 3 days ago? Yeah. Damn. You could have took me out there with you. Oh, Blake is fired. Asho Speed luqad Soomaali ayaa aqaan ayuu xataa wuxuu ku yiri goolhayihii hore ee Manchester United. Asho Speed markaste meel kasta uu tagan wuxuu yiraahdaa Soomaali ayaan ahay markii la weydiiyo wadankee ka timid. No, look, I'm from Somalia. We speak different type of Arabic dialect. Asho Speed wuxuu jecel Soomaaliya marka inuu tago mar dhow qaasatan Muqdisho ayaa rajaynayna Asho Speed naagtan Ethiopianka ah iyo taariikh ku dhigay ayaan hore wuxuu weydiiyay dalkeeda waxay ku tiri Ethiopia markaas uu yaabay wuxuu yiri Ethiopia waliya ma maqlin Soomaali miya ayuu taagan yahay marka Asho Speed Soomaaliya ayuu yaqaan si fiican marka Asho Speed waxa dhihi doonaa ku soo dhawow caasimada Soomaaliya Muqdisho haddana Starlink ay Soomaaliya helaysaa marka live streamkiisa kala ma go'i doono oo Speed xawaare fiican internet ayuu heli doonaa Asho Speedna wuxuu ku dhiban yahay inta badan dalalka uu tagin waa yani streamerkaas iyo sidoo kale qadkaas Starlink oo isticmaal badan haduusan helin ma tago haduu helo laakiin Starlinkaas oo kale uu tagaa dalalkaas Soomaaliyana hadda ay heshay oo Elon Musk ayaa wuxuu yiri Soomaaliya ayaan ka furi doonaa marka Asho Speed ma laga yaabaa inay soo dhaweysiin Ciyaar Axmar si ay soo dhaweysan laacibiintii waaweynaa ee Muqdisho ka soo degay